waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka Ustaad Saciid Training. waxaynu guda geli doonaa qaybtii 15aad ee casharadeenni taxanaha ahaa. qaybtan waxaynu ku baran doonaa wax lagu magacaabo healing brush. Healing brush waa brushka aad u jeedaan, wuxuu awood u leeyahay inuu tirtiro wax weyn iyo wax yarba wixii aad u idmatid inuu tirtiro ood u adeegsatid inuu magaranaysaa. marka haddaan tusaale ku soo qaato sawirkan hadda aad u jeedaan, halkaasoo kale bar yar baa kaga taala. halkan waa u jeedaa hadda bar ma lahan. sunniyihii oo kale ka waa jiran yihiin, shaarubadii oo kale. marka waxa awoodda magaranaysaa saa wax u tirtiray waxa weeye waa healing brush. faa'iido weyn uu leeyahay, keliya ma ahan marka sawir in loo adeegsanayo, laakiin wax walba u baahatay inaad tirtirid. tusaale hadda waxaynu ku tirtiri doonaa oo aad arki doontaan meeshaan ay ku qoran tahay gobolka Nugaal oo kale, ama xarfahan mid ka mid ah baynu ku tiraynaa. marka intaynu tirna baynu magac kala saaraynaa. marka healing brushku waa qayb ka mid ah history brush. macnaheedu wax horay documenti aad u haysatay haddaad rabtid inaad wax ka bedeshid uu kuu fududaynayaa si magaranaysaa weliba aan laga dareemaynin. marka waynu guda gelinaa, waa iska xiraynaa qaybtan. waxaynu soo qaadanaynaa sawir baynu soo qaadanaynaa. sawirkan baa marka practical ku samaynaynaa, waa soo dhaweynaynaa. marka waxaynu soo qaadanaynaa healing brush baan soo dooranaynaa. waa inoo dooran yahay. waxaan la dul imaanaynaa hadda sunniyahan oo kala rabnaa inaan ku jirno. ujeedaan ayar baa saa u marinaysaa, isla markiiba waxa weye khad ku saaraya. shaarubadan oo kale aan hadda ku xiiraynaa. ujeedaan waxa weeye saasuu xiiraya. tusaale bartaan yartaa hadda ujeedaan oo kale waa ku dhufanayaa, waa dul dhigayaa, waa kaa saasuu u tirayaa. firkii kale buu u ekaysiinayaa, lagama garanayo. marka healing brushka awooddaasuu leeyahay. sidoo kale waxaynu ku tirtiri doonaa qaybtan baynu u adeegsanaynaa. marka qaybtan xoogaa waa number weyn, marka waxaynu bedelaynaa size-ka aynu isticmaalayno. halkan oo kale size-ka 200 baan ka dhiganaynaa. size-ka aan ku tirtiraynaa 200 baan ka dhiganaynaa. marka markaasaan u adeegsanaynaa. waxa weeye xoogaa culays yar baa jira oo xagga magaranaysaa computerka, laakiin hal mar markii saa loo mariyaba horuu ka tagaa. marka hadda culays baa jira, si u dahayaa ka garanaysaa marka xagga computerka. marka hadda magacii waan tirnay. marka magacaan rabnaa saaran karnaa. layer baan qaadanaynaa. halkan oo kale marka waxaan ka dhigaynaa, waxaan bedelaynaa size-ka qaabka ugu qormaayo magacu. taasaynu qaadanaynaa. marka waxaan ka dhigaynaa degmada Burkina oo kale aan ka dhigaynaa. marka
degmada burtilo oo kale aan ka dhigaynaa degmada burtilo oo kale aan ka dhigaynaa marka kalarkaasaa kolaa ku jiray dabcan marka waxa weeye waa kaas macnaha hilib buraashku awooddaas uu leeyahay meeshuu tirtiraya waxa weeye faa'iidadaas buu leeyahay wixii aad rabtid meel yarna allah ka dhigee haddaa rabtid inaad tirtira hadda bilmatal sawirkaan oo kale aan isku daynaa inaan soo dhaweyno sawirkaan aan isku daynaa inaan soo dhaweyno marka waa aragtaa daankaas kale hadda nabar yar baa ku yaala waa ku tirinaa halkaa ka eeg waa ku tirinaa waa yaraynaynaa markii waa dul geynaysaa ayar badha ku siinaysa sorry meesha ii dooran baa khaldan waayo midkaan tirayo qoraalkii maahan marka bartaayo hortaayo kale waa taa hadda waa taa waan tiray haddaa rabti intaa ka badan ku samaysid waan ku samayn karaa marka maanta halkaas baynoo joogaysaa hilib buraash baynu baranay iyo faa'iidadiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu